saxafiga Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo muddo sanad iyo bar ku xidhnaa xabsiga magaalada Hargeysa ayaa ugu dambeyn maanta si rasmi ah u helay xorriyadiisa. Samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo warbaahinta kula hadlay hotel Guuleed ee magaalada Hargeysa ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay sii deynta xarigiisa. Waxa halkan la jooga warbaahintii intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyadeedii helay. maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1442 Hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020 anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bishii afraad ee 2019 maanta xor baan ahay. ilaahay baan u mahadnaqayaa. laka alxamdu ya rabb hatta tarda walaka alxamdu idha radayt walaka alxamdu ba'da ridha. ilaahay baan u mahadnaqayaa. mahadnaqan la soo koobi karin. waxaan idin sheegayaa haddaad isweydiinaysaan qaabkan ku soo baxay waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay. halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deyntayda. ma magacaabi karayo waa badan yihiin aad bay u badan yihiin. si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyay dhaliyay gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyadeedii helo. waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay gudoomiyaha xisbiga ucud injineer Faysal Cali Waraabe oo isaguna sii deynteedan ugu dambeysay ka qayb qaatay. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aqbalaadda uu ka aqbalay inaan xorriyadeedii helo. waxaan kaloo u mahad celinayaa qof iyo dhinac iyo hay'ad cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan maanta xorriyadeeda helo oo ka xumaa inaan xidhnaado oo ducaynayay oo ku taamayay oo rajaynayay mar inaan xorriyadeeda helo. waxa jira dad iyo aan la garanay oo dacalada caalamka jooga oo aan magacyadooda la aqoon oo khayr weyn rajaynayay oo garab istaag weyn muujiyay intan gudaha ku jiro. ilaahay baa kuwa og. waxaan mahad celinayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyay ee arrimahayga ka hadlay kuwa wadaniga hay'adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay'adda xuquuqda aadanaha ee Hargeysa iyo qaranka iyadana waan mahad celinayaa. waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International منظمة العفو الدولية iyadana waan mahad celinayaa. hay'adda Human Rights Watch iyadana waan mahad celinayaa. baarlamaanka midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan mahad celinayaa. jeel baan ka soo baxay. waxa weeye warbaahintuna waxa weeye halkan aad igu timaadeen. waxa jira dad badan oo aanan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyay. waxaan u mahad celinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayay ee garabkayga ahaa mar kasta muxuu ahaayay arrimahayga ka hadlayay arrimahayga mar kasta muxuu ahaayay idila wadaagay ma ilaawi doono. waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaar ah xusaan diidaya. ma doonayo maanta inaan hebel iraado haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan. maanta waxaan doonayaa muxuu ahaayay inaan intaa ku soo koobo. waxaan si gaar ah oo aan ilaaway oo ay tahay inaanan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn. hooyaday baa xidhnayd waxa weeye Burco ay ka imanaysay halkan ay igu imanaysay waxa weeye garabkayga ahayd ehelkayga waxa weeye sida ay igu samreena jazaahumullahu khayr. maanta anigu halkan muxuu weeye hadal argosiya ama hadal maaga ka oran maayo. waxa weeye maanta waxa weeye waad ogtihiin yani marxaladda aynu ku jirno iyo xaaladda aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayay ay tahay inaynu gacmaha is qabsano. waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha is qabsano. waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno. waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yiri Nabiyullaahi Yuusuf alayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay. waxa weeye shaydaan ayuun bayna dhex galay wax kale ma jiraan. waxa weeye maanta waxa weeye xaggii dambe eegi mayno. xaggii dambe waan ka nimi bal xagga hore aynu muxuu ahaay u socono inagoo istoosinayna inagoo isla talinayna inagoo aan aamusayn. laakiin waxa weeye wixii hore way tageen. waxaanan jeclaan lahaa inaynu muxuu ahaayay aynu halkaa ku soo koobno. Maxamed Joker, telefishinka Home Cable, Hargeysa.